salaan kadib magacaygu Cabdiraxiim Muxiidiin waxaan dhigtaa galaaska macallin Maxamed kalimadaydu waxay daaran tahay 3 qodob kow inaanu mahad celiyo waalidiinta sharafta badan ee hortayda fadhiya laba inaanu duceeyo amaano u soo jeediyo macallimiinta waxna baray saddex inaan talo wax ku oolaasiyo daayartaan codkooda ku hadlayo maanta kow waalidiinta sharafta badan oo ay ku jirto hooyadii macaan iyo dhammaan waalidiinta goobtan soo xaadirayba waxaan idin leenahay abaalkiina ma gudi karno habeen iyo maalinba haddaan dhabarka idinku qaadno waxaad tihiin kuwa caloosha nagu siday 9 bilood waxaad tihiin kuwa nala soo maray foosha aanu maqalnay xanuunkeeda waxaad tihiin kuwa noo hurda seegay 9 bilood waxaad tihiin barbaariyayaasha bulshooyinka waxaad tihiin kuwa baarinimadooda jannada lagu galo sida ay shareecadeenu sheegtay waxaad tihiin kuwa noo walwala habeen iyo maalinba waxaad tihiin kuwa ammaantooda iyo waxtarkooda midna aan lagu cabiri karin carab kasta oo wax ku cabira ama curiya waxaan saleenahay jazaakumullahu khayral jazaa abaalkiina janno laba macalinku waa dhisaa maskaxda toosiyaha caqiidada tarbiyeeyaha jiilasha waxaan saleenahay macallin noo sabar macallin noo dulqaado macallin waxaanu nahay jiil ay wareerisay fitantu jiil qaxooti ah oo qurbo ku nool jiil meel walba ka qaawan jiil maqlaya waxbaa la qarxiyey 700 bay naftu ka booday hal daqiiqo ka yar waxaanu nahay jiil ku wareersan jinsiyadoodu waa noocee war kala ma saarnaadee haddaan soo aruuriyo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa meel hoo u baahan hadal wax kama tare xaqa nagu haga hanuunintana ha ka daalina waxaadna naga mudan tihiin duco iyo ammaan ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa janno inuu abaal iyo hadiyad idin siiyo aamin saddex talo iyo dardaaran waxaan kula talin daayartaan ku hadlayo codkooda inay ogaadaan qiimaha waxbarashada inay ogaadaan nicmada waalidka inay qadariyaan macallimiinta inay ilaashadaan islaamnimadooda kadib Soomaalinimadooda inay si wacan oo ula noolaadaan bulshada ay martida u yihiin meel kasta oo ay adduunka ka joogaanba gaar ahaan kuwan Turkiga ee na sharfay wadankeeniina sharfay inaad ogaataan haddaanu nahay maanta caruur bari waxaan noqon doonaa culimo hogaamiyayaal siyaasiyiin iyo tujaarta adduunka dhaqaalihiisa kala maamusha haddaba su'aashu waxay tahay maxaa lagu gaari karaa jawaabtu way fududahay dadaal aqoon baarinimo waalid ixtiraam macallin iyo inaad fahanto xageen u socdaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadal badani ma buuxise dhalinyaro in wax la isweydiiyo ma xume xageen u soconaa waa shaqo guri ee isweydiiyo adigu wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh